Ninkani wuxuu sheegay inuu ka yimid mustaqbalka, wuxuuna ka sheekeeyay waxyaabo dhici doono, runtiisa iyo beentiisaba. La soco muuqaalka. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Daawadayaal, waxaa idinla hadlayo Kabtan Meejar. Kusoo dhawaada iska bedel tube. Haddii aad ka hesho mawduucyada noocaani oo kale ah, subscribe noo dheh. Haddii uu muuqaalkan ku cajabina, laag noo saar. Waad mahadsan tahay. Ninkan oo ku sheegay magaciisa inuu yahay Nuux, waxa uu dhahay inuu ka yimid sanada 2030, wuxuuna sheegay in Donald Trump mar labaad uu ku guuleysan doono madaxtinimada qaramada midoobay, asigana uu howlka dhigtay ku safrida waqtiga sida uu ugu dhigo khatarta ka imaan doonta mustaqbalka. Waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahaa caqliga gacan ku sameyska ah ama robotiska loo yaqaano inay adduunka ka talin doonaan. Nuux wuxuu sheegay inuu nafsadiisa halis soo geliyay maadaama waqti dib ugu soo laabtay, wuxuuna yidhi, aniga uma imaanin qof inaan siro, hadafkii kaliya wuxuu yahay dadka inaan u sheego ku safarka waqtiga inay suuragal tahay. Xaqiiqdii ku safarka waqtiga waxay suuragal noqotay sanadii 2003. waxaa keliyana og oona isticmaalo ururo qarsoon, dadkana ma loo soo bandhigin ilaa laga gaaro sanada 2028. Muuqaal laga duubay ninkaas ayaa muujinaya Nuux oo lagu xiray qalabka lagu ogaado beenta, waxaana la weydiiyey su'aalo fara badan oo ku saabsan inuu ku noolaa 2030. qalabka beenta lagu ogaado ayaa sheegay in jawaabaha uu bixinayo ay run yihiin, maadaama nafsadiisa uu soo geliyay halis sida uu ugu digo waxyaabaha 10 sano soo aadan dhici doona. Nuux waxaa kale uu sheegay tiknoolajiyadda inay horumar gaari doonto oo caalamka ay qabsan doonto, wuxuuna sheegay madaxweynaha qaramada midoobay 2030 inuu noqon doono qof loogu magacaabo Rimiki. hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in kuleylka Latin America uu kor u kici doono ilaa heer aan la xamili karin, dadkana ay markoodii ugu horeysay tegi doonaan meeraha Maaris loo yaqaano sanadka 2028. baabuurta ku shaqeeya korontada ayaa bedeli doona baabuurta ku shaqeeya basiinka iyo dieselka, taasi oo sababi doonta noocyo cusub oo kansar ah inay soo ifbaxaan. Nuux waxa uu sheegay inuu abitaadka ka xiran yahay, da'diisa dhabta ahna ay tahay 50 sano, laakiin asiga uu cabay daawo ka dhigtay dhalinyaro 26 sano jir ah. Nuux oo wejigiisa uusan muuqanin muuqaalka ayaa ku andacooday lacagta bitcoin-ka la dhaho in aad loo isticmaali doono, inkastoo ay jiri doonaan lacagaha waqtiga dhaafay adeegsigooda. Marka loo eego waxa uu yidhi, dadka waxay ogaan doonaan sida loogu safro waqtiga si weynna ayaa caalamka loo ogaan doonaa 2030. qofdaasoon dartiisa oo la dhaho Rimiki oo markaasi kadibna noqon doonto madaxweynaha qaramada midoobay. Nuux wuxuu sheegtay inuu haysto cadeymo badan, laakiinse cadeymahaasi hadduu dadka u sheego waxay sababi kartaa waqtigiina isbedelo. Ninka wareysanayay Nuux ayaa weydiiyey inuu runta sheegayo, wuxuuna yidhi, haa, runta ayaan sheegayaa. Markii la fiiriyay qalabka beenta lagu ogaadana waxaa caddaatay inuu runta sheegayo. Si kastaba ha noqotee, dhaleeceeyayaashu waxay si dhaqsi ah u tilmaameen in daawadayaashu aysan arkaynin natiijada qalabka beenta lagu ogaado. waxaase dhici karto inuu Nuux yahay qof waalan oo uu rumaysanayo waxa uu ku hadlayo, sidaasi darteedna uu qalabka noo sheegayo inuu runta ku hadlayo. natiijooyinka qalabka ma laga aqbalo badanaa kiisaska maxkamadaha yaalo, inkastoo qalabkan ay isticmaalaan askarta Mareykanka oo qayb weyn uu ka yahay dambi baaristooda. Sidoo kale, dhakhtarka cilmu nafsiga Don Groben ayaa kashifay in qalabada beenta lagu ogaado saxnaantooda ay u dhaxayso 65 ilaa 95%, waxaana jiri karaa cadeymo in Nuux asal ahaanba lagu xirin qalabka beenta lagu ogaado. laakiin culimada ayaa shaaca ka qaadeen inay macquul noqon karto mustaqbalka dhow. fahamka shuruucda fiisikiska iyo shuruucda caalamka ayaa u horseeday gunaanudka in guusha noocaani oo kale ah ay suurtagal noqon karto. aqoon-yahan la yiraahdo Brian Greendale wuxuu yidhi, qofkii ugu horeeyay ee fikradda ku safarka waqtiga sheegay waa caalimka weyn ee Albert Einstein oo dhahay, haddii uu shay gaaro xawaaraha iftiinka meel ka fog dhulka,
waxa uu ku safri karaa waqtiga. sababta dhulka uu fogaanayo waa dhulka waxa uu leeyahay cuf isjiidad, cufnaantana xawaaraha sheyga ayay hoos u dhigtaa. marka Albert Einstein wuxuu yidhi haddii shay ama qof cirka la geeyo kadibna la gaarsiiyo xawaaraha iftiinka, wuxuu dhulka ku soo laabanaa isagoo waqtigii isbedelay, ama hore u socday ama gadaal u soo laabtay. ugu dambeyntii waxaan waa aragtiyo oo keliya, weli ma la tijaabinin. midoo kale daawada ma ogtahay waa imise xawaaraha iftiinka? aan kuu sheego waa 299,792,458 mitir per second. marka aragtidaana in la tijaabiyahay ma sahlano, laakiinse waa suuragalo. culimo badan ayaa u soo dhowaaday xawaaraha iftiinka. ugu dambeyntiina muuqaalkeen meeshaas ayaa kusoo koobaynaa. dhegayste, haddii aad fursad u hesho inaad waqtiga dib ugu laabato, waqtiga u laaban lahayd, ama haddii aad fursad u hesho waqtiga inaad mustaqbalka aado, inteed aadi lahayd? commentiskana ugu soo qor. subscribe-ka iyo like-na naga iloobina. waa mahadsantihiin.